xafladaha lagu soo dhaweynayo sanad walba markii la gaaro xilliga fasaxa samarka ee ka dhacayay guud ahaan waddankaasi Faransiiska ayaa waxaa lagu soo waramayaa in ay ka dhaceen weeraro loo adeegsaday cirbado kuwa oo la duray dadkii munaasabadda xafladahaasi ku kala sugnaa gobollada kala duwan ee dalkaasi Faransiiska. in ka badan 145 qofood ayaa lagu soo waramayaa in la duray cirbado kuwa oo aan la aqoon waxa ay yihiin iyo sunta iyo weliba waxa ay xambaarsan yihiin. tirada ugu badan ayaa la soo warinayaa in ay ahaayeen dhalinyaro siiba gabdha ah kuwa oo ku kala sugnaa xafladaha kala duwan ee ka dhacayay deegaanada kala duwan ee dalkaasi Faransiiska. xafladahan kala duwan ee muusiga ayaa ah kuwa sanadle ah kuwa oo bilowda bil walba 21 Juun marka la gaaro xilliga oo iskuulada la xiray fasaxa guud ee samarkana la guda galayo. wasiirka arrimaha gudaha dalka Faransiiska Gérald Darmanin ayaa ku tilmaamay midani inay tahay xaalad halis ah oo aan la qaadan karin. waxa uuna intaa ku daray in ay hadda ka shaqaynayaan sidii ay u aqoonsan lahaayeen oogana daba tegi lahaayeen una soo qaban lahaayeen cid kasta oo ku lug leh kiiskan. si taalamidana waxa uu sheegay in ay ku dadaalayaan juhdi badanna ay ku bixinayaan sidii ay ku ogaan lahaayeen waxa ku jira cirbadahan la duray dadkooda. magaalada Metz ee waqooyi bari dalka Faransiiska ayuu ka dhacay weerarkii ugu horreeyay ee loo adeegsaday cirbadan. waxa uuna duqa magaalada Metz Francis Gros Didier uu sheegay in loo qabtay qof ka mid ah dadkii cirbadaha ku duraya dadka ka soo qayb galay xafladaas. magaalada Metz ayaa waxaa xafladan iyada ugu dabaaldegayay in ka badan 50,000 oo qof kuwa oo isugu soo baxay barxadii ay ka dhacaysay muusigan iyo bandhig fareedkan lagu qabanayay magaaladaas. si taalamida guud ahaan dalka Faransiiska magaalooyinkiisa kala duwan ayaa waxaa isugu soo baxay malaayiin qof kuwa oo ka qayb qaadanaya xafladan sanadkiiba mar la qabto. magaalada Paris ee caasimadda dalkaasi Faransiiska ayaa laga diiwaan geliyay in ka badan 13 kiis kuwa oo cirbado la duray 13 qofood. cirbadahan la duray dadkii ku sugnaa xafladii ka dhacaysay magaalada Paris ayaa lagu soo waramayaa in ay xambaarsanaayeen daroogo aan la aqoon waxa ay tahay, waxaana 3 qofood oo ka mid ah 13 qofood ee la duray cirbadan la dhigay isbitaalka kadib markii ay soo wajahday xaalad halis ah oo caafimaadkooda waxyeello u geysatay. afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha dalka Faransiiska ayaa sheegay in aysan garanayn heerka khatarta ay gaarsiisan tahay waxa la duray dadkan. si taalamidana ay hadda wadaan baaritaano xoogan oo ay ku ogaanayaan nooca ay tahay cirbada la duray, waxa ay xambaarsan tahay iyo saameynta iyo dhibka ay u geysan karto qofka la diray. kiisaskan cirbadaha la isduraya ee ka dhacaya guud ahaan deegaanada kala duwan ee dalka Faransiiska ayaan la garanayn ujeedada iyo waxa ka dambayso, waxaana lagu soo waramayaa in ilaa iyo hadda loo qabtay kiisaskan cirbadaha saliingada loo adeegsaday ee dadweynaha kala duwan ee xafladaha ka qayb qaadanaya lagu duray ilaa iyo 12 qofood kuwa oo ay booliiska gacanta ku hayaan waxna laga weydiinayo falkan ay kula kaceen iyo cid walba oo ka dambaysay. halka ay wararka ugu door karoon idinkaga imaanayeen waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.